أو عفس كنقض تاسنا waxay tahay in public ugu gafay nasabiyadeyda no guys yes gaarin hadda qofku wuxuu sameeyay shalay yaanaan ka hadlaynin muhiimadu waa afikarna iyo ma afikarna waa balil waxaan ka rabaa adii ilka casi waa isku jawaabteen jawaabaha soo bixiyay ma cabsat ilka case anigu ilaa hadda waxa kama sheegin mana ana u jawaabin asaguna iima soo jawaabin ilka case meeshu iigu jawaabay qofkii haaya ha keeno meesha anigu ugu jawaabay qofkii haayana ha keeno hadii su'aal straight u jawaab su'aal weydii سيجا أساق باش لو جواب سؤال استريت uga jawaab waa ka استريد ugu jawaab hadii dhigayso hadee استريد ugu jawaab hadii dhigayso intana ka badin dhigayso aku dhameeye ala waqti iska dhuminaysid ilka case heesta aan dhahayo waxa maqleen raab kadib wala barambura waxa qaaday 2019 sharma boyana marqaati ka cadeynteedana arkay ديم شرب قري سو قاده روح دائما naagtii markhaati aanay dawid baan anigu isma qaban laakiin ninka isqabanaa ku sheegay dhageyso كوي لا تكيو سميني ninka isqabanaa ku sheegay dhageyso ilka case yarka abwaankiisa isqabanay ani ilka case isma qaban yarka abwaankiisana hees ma u qaadin sababta si studio tagays ima soo duubin video le ugu jawaabay wax kale ma aan ugu jawaabin respect u haya hay waayahay okay waayahay soo dhow lil balil waxa jeceshahay in maaragtay dadku haday mar isqabtaan in dib loo walaaloobo ayna la isqaban karo lana heshiin karo si fiican saaxiibkii horta mid ah jirto anigu waxa waaye social media ku jira youtuber ahay shaqada aan social media ku joogo priority koowaad waa youtubernimo waxaan kale muusigana waxa waaye Somali YouTubers to the wall waa ogtahay maadaama youtuber ahay oo fanaan aan ahayn oo youtuber ahay waa ka dhiiqa badanahay qofka fanaanka waa ka dhiiqa badanahay oo waa ka dagaal badanahay dad far badan waa soo qabanay waa la heshiiyay laakiin mid jirto waxay tahay waxna waa wax personal ah waxna waa wax public ah aniga in aan la heshiiyay ninkaas dad kale oo fanaaniin ah oo walaalo ahna waa ii soo waceen oo waa igala hadleen hadda ka horna mar isku dhacna waa jirtay oo dad walaala maaragtay ila hadlay oo aan ka ogolaaday inaan la heshiiyo haddana maaragtay wax saas u dhib badan ma ahan oo dad ma aanan kala dilin haddii la heshiinayo laakiin mid jirto waxay tahay aniga shakhsi ahaanteyda ninkaas waxba uma qabo laakiin waxaa jiro wax aanan anigu ku dhicin inuu ninkaas agteyda oo cafis ka noqdo taasna waxay tahay in public uu ugu gafay nasabiyadeyda no guys yes gaarin hadda qofku wuxuu sameeyay shalay yaanaan ka hadlaynin muhiimadu waa afikarna iyo ma afikarna waa leel balil ma ahan ina ka hadlayno ifaan wuxuu sameeyay ma ina ka hadlayno anigu ka hadlayo qofku lama joogo lama maqlaayo guys halmid guys balil adi meel kale oo urdusa anigu xiise ugu meesab waxa ina ka sheekeeyo laakiin muhiimadeeda waxay taan ku iri public ninka oo ugu gafay aniga waalidiinteeda iyo nasabiyada hooyaday qabiilka ee ka dhalatay iyo ummadii islaameed ee qoomiyada ahayd publicu ugu gafay hadduu soo fariisto oo publicaas ka raali geliyo anigu ninkaas walaalkay waay waxna ma qabo arka diido ragana ha sababta hadarta waxa dhahday pointiga ku dhigto oo publica soo fadhiisto anigu waxa diidanay in la dhaho shalay saas igu sameeyay shalay saas la sameeyay waxa ka wanaagsan berito maxaa aniga tabliiq mi naftirkay asoo waxa ahay walaal siikeyo de meeshaas waxay noqonaysaa ayada dad walaalaha dadku muhiim ma ahan laakiin public hadda wixii waxay u ekaanaysaa markii la fiiriyo ma taqaana shuruud camal inaan shuruud ku heshiin karno laakiin ayadoo wax walba dad macna aniga hadda dad wax dhaxmareen xaalad xun dhaxmartaa jirto wax walba soo dhaxmareen haddana de caafi aan isniri oo horta wax walba cafiska ka muhiimsan cafiska ani ahaanteeda dad badan hadda waxaa jira markii oo aan nin aan isqabsanayn ninkaas dhalinyarada ah markaa isqabsanay ninkaan aan dhahe daari cali shoo markaa isqabsanayne dad badan oo waxaa jira oo walaal ehel asxaab Soomaalinimo igu danqaday oo mataqaana oo xataa liil baliila kamid ahaa ana dooday
asug dhegeysid lil balila ka mid ahaa haa dadkii oo dhan anoo aan la tashanin fiiri ah anoo aan la tashanin dadkaas oo dhan oo mataqaana hadda maanta laga yaabo qaarkood inay iiga xun yihiin mataqaana qofkii aan sharaad kula dagaalamayne oo aan mataqaana dhibkaas dhan soo marayna adoo aan la tashan inaad iskala heshiis aad soo qabsatay meesheedu soo qabsaday si sharaf leh mataqaana meeshaan soo qabtay anoo buuq kale aan galin waxaan dhahay maadaama bil ramadaan ay tahay mataqaana aan iscafino anaaba dhahayba ma fahanta adi inaan ka khaldanahay iyo inuu iga khaldan yahay midda uma fiirsan waxaan dhexmaray iyo wixiina soo dhexmaray iyo waxaasoo dhan ma fiirin hal midaa su-aalaa qabaa oo igana ah mataqaanaa codsi walaalnimo ixtiraam darro waayo sababto fiiri hadda fiiri tusaalaa ku tusaa habba tusaalaa ku tusaa baay hadda life ma ku jirnaa hadda kun jeer lagu soo waco ka waran markaas waa ku daminaya kadib waa ku celinaysaa maxaa rabta yaa tahay banaa kaa dhici karta stuudio ku jirta safaraa ku jiri kartaa laakiin arrinka waxa waaye message iska soo hormari muhiimaddu waxa message iska soo hormari muhiimaddu waxa waa qofka marka ma ogtahay hal mar aan ka dhaxgala ma ogtahay fanaanku walba oo kaa horeeyay ma ogtahay fanaanka laga horeeyay fanaanka oo soo horeeyay fanaanka markuu kaa horeeyay xitaa haddii uu waxaa jira fanaaniin ka adiga kaa soo horeeyay lil baliil laakiin markaa fiirisid kaa fiyus yar ma fahanta saas tahay laakiin labada qof fanaanka kaa horeeyay kaa fiyus yar hadduu rabo waxaa jirto inaa fanaaniinta kaa horeeyay qofka marka laga horeeyo fanaanka dambe inuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo fanaanka hortiisa la barte inuu qadariyo inuu inaa qadarisid ku faraxsanaada qadarinta laakiin aniga pointigay laakiin aniga pointigayga fanaan ma ahayn aniga waxaan dhahay dad noocaasaa jira oo qofka bini'aadamka waxaa jirta markaa la hadlaysa qaab jid loo soo maraa jirta tusaale ahaan taageera ah kaba soo qaadbaya ismaabiya taageera ismaabi markaa taageero lambarkiisa aan helo waa inaa isweydiiyo laba su'aal labada su'aal ay isweydiinayo waxa waaye ma garab baan uga baahanahay mase taageeranimo inaan ula hadlaa rabaa ma fahantay markaa garab uga baahanahay waa gooni waa inaa qoraalkayga waa inaa diyaarsadaa qoraalkayga oo yow aniga magacaygu waa saas waxaan ahay qof saas talentigaas leh adiga iga horeysa meeshaan wax kale kaagama baahani waxaan kaaga baahanahay talo hadduu qofku markaas fursad isiiyo waa isiiye hadduusa fursad isiinna ma isiin ya okay markaan taageeranimo ee tahayna waa dhaho yow anigu waan ku taageeraa saaxiib howshaada hore usii wado waana jeclaa lahaay haddaa maalin fursad hesho inaa codkaaga xitaa 1 daqiiqo maqlo waa respect markaas laakiin qofaa lambarkiisa hadda lagu siiyey waa wacday uu kugu jaray haddana waa wacday uu kugu jaray haddana waa wacday uu kugu jaray waxa saddexaad sugaysa maxaa waaye dee waa block qofkaan iska bidaa ku weydiinaa saaxiibo wayna dhici kartaa wayna jiri kartaa fadhaan oo heeso oo heesihiisa adi ahaan aadan ka helin qaabku heesa u sameynaayo aadan ka helin macnaha oo qaabkiisa isleedahay qofkan waa xoogsanooyaa baddan waa lagu wada jiraa u soo galay fanaankaasna xoogaha bulshuu heesta dad taageero ah buu leeyahay adigana heesiisun ku heysatid fanaankaasoo kalea ku soo wacay oo adiga ku dhahay hees inaa kula qaadaa rabaa vibekiisana ma ka heli qaabku wax u qaado iyo qaabku wax u sameeyana kama ada helin ma fahante hal mid ay soo maraan hibeymi bro hal mid ay soo maray runtaa sheegay ani hal mid ay soo maray Nairobi yaa joogay waxaan ku dhahay brother aniga shaqadaada meesha u socotay iyo qaabkii u socotay isku 5 minute mana ka helin yes collaboration aan kula sameeyo ma rabtaa ha collaboration intaas ku sameeya runtan sheegay he pay me ya managerkayga joogay he pay me haddoo iswaalwaalo in frontal soo istaaga waxa la